horyaalka Talyaaniga Serie A ayaa shalay ciyaarooyin la yaab leh oo xiiso badan ka dhacay. Ciyaarta koowaad waxaa wada ciyaaray AC Milan iyo Venezia. Ciyaar kulul oo macaan badan ayaa ka dhacday. Walle waxba ka dhacay. Milan oo sanadkan taagan horyaalka ayaa u dagaalamaya oo Inter ma laga yaabo inay sidii sanadkan u faraxdo ayaa sidatan u ciyaareysay 4-2-3-1 waxaa tababarheeda ahayne Mr. Pioli. walle waxaan dhihi karnaa Milan لاعبين badan ayaa ka maqan oo waa saal socotiin dhanka Afrika ay wada baxeen koobka Afrika ay wada ciyaarayaan waa Kise iyo Ismail Ben Nasser labada xidig oo ugu caansan ayaa ka maqan ay dhihi karnaa AC Milan laakiin se Pioli uu dagaalamoha 4-2-3 ayuu dagaalamaya. Ibrahimovic ayaa hogaaminayo waa Ibrahimovic haduu gool ka dhasho kooxdan wuxuu noqon doonaa 80 koox ninkii labaad ayuu ka dhalanayo gool ayuu noqon doonaa bacdi Cristiano Ronaldo. waan garanay Venezia ayaa insan u ciyaareysay 4-3-3 Venezia waa taala socotiinbo waxayba ku dhowdahay Serie B laakiin se waxay taagantay waa dagaalamaya oo Milan in iska dhashaa jirto leeskuma daahina ciyaarta se u socoto. Ibrahimovic ayaa dhashay daqiiqada labaad markii sii mareysabo gool caalami oo yo bash ku siiyay ayay nagatay 80 koox oo kala nuuc inuu ka dhasho goolal. That my career will soon be over. You don't know me. All my life I had to fight. No one believed in me. So I had to believe in myself. Some people wanted to break me, but they only made me stronger. Others wanted to exploit me. They only made me smarter. And now you think I'm done? To all of you, I only have one thing to say. I'm not like you, because I'm not you. I am Zlatan Ibrahimovic, and I am just warming up. Cristiano Ronaldo iyo asiga kaliya ayaa ka jiro wax dhalshay 80 koox oo kala gooni wax gool ka dhalshay waa asiga iyo Cristiano Ronaldo cid ku haysata male iskorkaas. walle Ibrahimovic walle caadi miida dhihi karaa Ibrahimovic caadi ma ahan. asxaabta haddii aad ka hesheen tibintii ciyaaraha iyo isla fiidiyoga asoo dhigayno yaana yala baqiilin subscribe-ka iyo like-ga iyo jaraskane intaba waa noo dhiirigelin ayaan dhihi karnaa. waan garanay ayaa si u socota goolasha waa kuwana Milan iyo Venezia gooshi Ibrahimovic wada daawano. caadi ma ahan gooshi Ibrahimovic waatana goosha labaadna waxaa ka dhalshay xidigeeda Theo Hernandez ayaa u lameeyay waxaana u saddexeeyay Theo Hernandez ayay gibi ahaan ciyaarta kusoo gabagabowday 3-0 ayay Milan horyaalka saas u hogaaminaysaa muddo daqaayiq ilaa ay ka ciyaarto Inter ayaa dhihi karnaa. wow gibi ahaanba sidaan bay kusoo laatay Venezia iyo Milan baa ku guuleysatay 3-0 oo Milan ba guul yaqaan kala soo hoyatay guriga Venezia. ciyaar kullo xiiso badan oo idin dhex martay waa Roma Mourinho iyo Juventus ayaa Roma sidatan u ciyaareysay 3-5 Roma waa taala socono ciyaartii horeba khasaare kul ayaa kusoo dhacday markay garoonka San Siro khasaare kala soo kulantay kooxda Milan oo 3-1 ayaa taagan Juve ina ka dhacsada waa 3 dhibac 2 khasaaro ma qabato coach Mourinho ayaa taagan sidatan. Juve idin waatna sidatan bay u ciyaareysay waa 4-2-3 waxaa u dhelay xiriga Mosekin ayaa noob u dhelay laakiin se Juve iyo Roma walle ciyaar kulul waay inta u socono ciyaaraheedu waa macay markasta oo ciyaar macaan bay dhelaan. goosha koowaad buu waxaa bilaabay Cala Abdullah isbadda daqiiqada 11 ayaa dhashay xidiga heer Roma Tom Ibrahim ayaa u saxiixay goosha koowaad markay mareysay 11 daqiiqo ayaa waxaa soo bareejiyay xidiga Dybala 18 daqiiqo markay mareysay ayaa Juve bareejo la timid 1-1 ayay ciyaartu wada taagan tahay walle faano la faraka ma qodno
ciyaar macaan oo la yaab leh ayay shalay ahayd midda ka dhacday Roma iyo Juventus waan garanay ayaa Roma lamaysay waxaa u lameeyay xidigooda Mkhitaryan ayaa u lameeyay daqiiqada 48aad markay mareysabo ayay Roma naqatay 2-1 Juve ayaa sida qasraan ku waa loo saddexeeyay sheekadu waxay sii gaartay 3-1 markoo Pellegrini ka dhashay gool macaan oo caadi ba ahayn Belgium ayuu ka dhashay oo afka hore loo dhigay kooxda Roma ay ciyaarta sii maraysaa daqiiqada 53aad markay tahay 3-1 ayay taagan tahay Juventus waxaa laga rabaa inay 2 gool oo baraja keento haddii ay diidan tahay inay qasaarto walla ciyaartu caadi ma ahan balse taariikh baa ka dhici doonto daqiiqada soo socdo Juve ayaa la timid goosheedii labaad markay maraysay daqiiqada 70aad Locatelli xidiga ay kasoo gateen sanadkan kooxda Osasuna kooxda oo Serie B ka ciyaaraysay shaqeeyay xidiga ay kasoo gateen kooxda Sassuolo ayaa u dhashay goosha labaad Marco Locatelli ayaa dhashay waa xidiga qaranka Talyaaniga daqiiqada 70aad ayay sida tan ku maraysaa ciyaarta 3-2 waxaa kasoo horay ciyaarta dhamaan 20 daqiiqo ayaa dhici karnaa waa 70 daqiiqo markay maraysay ayuu Locatelli goosha labaad u saxiixay leeskuma daahimbo Kulusevski ayaa daqiiqada 74aad u keenay bareejada Juventus 3-3 waxba ka dhacay 3-3 afar daqiiqo ayay u baahatay kaliya bas Juve inay bareejo ku keento wallahi Juventus ay caadi ma ihid ay karaa ciyaartu waxay taagantahay 3-3 balse Samsi ma ahaanin isla markiiba daqiiqada 77aad ayaa Disilio u keenay gooshi oo guusha Juventus ayay taagantahay sheekadu 3-4 gool ayaa ka dhacday kulan taariikhi oo lama ilaabaan ayaa Juventus remontada saas ku sameysay 3-4 bay ciyaarta lafaha u garaacday kooxda Roma markay Roma ku hormartay 3-1 laakiinse way difaaca weyso waayo السيدة العجوز ayaa dhahday aniga kaas leh 3 dhibac isdaarin bal wada daawano ciyaarta taariikhiga goolasheeda wada daawano Tommy Ibrahim ayaa bilaabay goosha koowaad wata hore dushan waxaa soo bareejiyay Dybala gool macaan ayuu ka dhashay Marco Dybala Mkhitaryan ayaa u lameeyay markuu dhashay gool macaan Pellegrini waa kana Belgium macaan ayuu kala baxaa dhihi karaa Belgiumka inaba caadi ma ahayn waatana gooshi Locatelli wow caadi ma ahan Juve shalay way dagaalantay Disilio waa kana gooshi oo guusha oo ku keenay gooshi afraad walle remontada caadihin gibi ahaan bas tan soo gabagabaday bal fiirina ciyaarta kale oo la sugayay waa Inter iyo Lazio walle shalay horyaalka Serie A ciyaarooyin la yaab leh ka dhacay sida tan ayuu ciyaarayay Inter waa 3-5 Mr Inzaghi ayaa noocatan u ciyaarayay Sanchez iyo Martinez ayuu u ciyaarayay afka hore walle Inter waxay rabtaa iyadoo taagan inay soo ceshada waayay hogaankeygii Lazio ayaa idin sida tan u ciyaaraysay 4-3 Mr Sarri oo ku taqaaniin weerar afka hore waxaa u dheelayay Ciro Immobile iyo Pedro Lazio ciyaartii hore ida ka badisay Inter waa halka koox kaliya oo ka badisay sanadka Inter bal ma ka badi doontaa bal sugno daqiiqada 30aad markay maraysay ayaa goosha koowaad waxaa la yimid Inter waxaa u dhashay xidiga Bastoni ayaa goosheedii koowaad u dhashay Inter markay daqiiqada 30aad maraysay balse Lazio isma dhiibine waxaa soo bareejiyay xidigeeda Ciro Immobile ayaa soo bareejiyay markay maraysay daqiiqada 35aad ayay ciyaartu taagantahay bareejo 1-1 gibi ahaan waxaa lagu kala baxay kaalinta koowaad 1-1 balse kaalinta labaad ayaa Skriniar gool macaan oo Rasia ka dhashay Lazio ayay gibi ahaan ciyaarta kusoo gabagabooday 2-1 ayay guusha qaadatay Interista bal wada daawano goolasha sida ay u dhaceen wata inay sheegnaba goosha koowaad waatana alaab caadi ahayn oo saaruuq ayuu ku daayay balse
guusha Messi wadano isla markiiba waa la soo bareejiyay waxaa soo bareejiyay xidiga Herlasio Ciro Immobile waatana goosha Immobile Portugal ayaa qalad iska lahayd dhikra Samir Handanovic ayaa qalad ka lahayd boqolkiiba si ila tahay balse kaalinta labaad ayay dhacday Inter inay guusha soo ceshada jirto hoggaanka iyo dib u soo ceshado ka soo qaato AC Milan oo ka soo maroogsado ayaa Skriniar gool macaan ka dhalishay oo رأسية عادي هنا يديك رأيو مضح كل هذي جوش عادي مهن عادي ما هن إنما عادي مهن أجي يجيب أهم بو ريال يارتش على كذا عادي يارش على كذا دعي ريال كتلياني جا يا ديكرنا واقوانا نتيجة ميلان أيا أو بس فينيسيا سدح يا إبر إمبولي أيا لو جرا عايشان إيا هال أتلانتا إدنو عيكو بدس اللح يلا بو شلي يارو وذا عادي هنا كذا دعي بو ريال كتلياني جا ديبو وصل الله بتاعي كذا دفاعي هرويسكي إلا بيترياني مركا وحوت تاجين يا وير كأي كشدان تهاي قول العاد أنا لو دلشوا خدانه ساسولا ودي عشان كوبا تلانت اللي كوبا يسي يارتي روما يوفي تضبقر إن عادي ما مركا هوريك ترياني جوا شدين هاي عادي ما أهن لو ذا كوي لواتي لبذا هوريك ترياني جا لجمع وطا ديكرا نابولي أي إذا كبر السمبدوريا جنوانا وجوالا جرا عايز بيزي أي جرا عادي روما يوفي نافرس الداح إنتر يلازيون الله بيحل هيلاس فيرونا إيا سالنتانا وحي كل عطي الله بيا هل هوريالكو عاو قامنا إيو انتر ميلان أياكو قامنا إيش أفرطن إيا سيال دبع لكن سهل عيار بي كان ناقص يا الله باطن عيار بي عيارتي اي سي ميلان أيا إيدنا أفرطن ستير دبع وضاط لكن كوي الله باطن عيار بي عيارتو عيار بي ديرتها هاي انتر أفرطن إيا سدحنو حاوطنا بولي أتلانتن الله باطن أي وضاطا التلاتة وحي وطا أفرطن إيا كو لباطن عيار مركي عيارتك دي بيوفيني صدن إيا سيدد horyaalka sanadkan waa kacsan laakiin labada koox oo Milano wax ka haysta malese ila tahay labadaas koox ayaa kule horyaalka boqolkiiba saajalahay dhanka goolasha waxa hogaaminaya Dusan Vlahovic xidiga heer Fiorentina ayaa ku hogaaminayo 16 gool Ciro Immobile ayaa isna 15 gool leh Giovanni Simeone isna 12 gool ayuu leeyahay Lautaro Martinezna 12 gool جيبي هامبو ونجا أنت سيادي كرنا أنت نجسو قارت ريال كسيري إذا إدل كتليانيجا هدنا وحاني لنا صحابي سبسكرايب كي لايكا إيو كومنتيجا أنت بوه وانو دي رجلين يال إلوين